hooyooyinkan masaakiinta aa u jeedin hay'ad wax ma siiso waxay ku nool yihiin walaalaha Soomaaliyeed oo muxsiniinta waxay u soo dhiibaan ku nool yihiin oo ahaa muuqaalkiisii u dambeeyay sidii ay xaqiijiyeen saraakiil sarsare oo uu la shaqeynayay. Allaha u raxmaday askarigan damiirka leh waxa uu ahaa mid caawiya oo had iyo habeen garab taagan walaalihiisa gaajoonaya iyo hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku dhiban magaalada Muqdisho. Maqribkii wax yar ka hor waxa uu ka soo tagay isagoo faraxsan xarun agoonta lagu hayo, taasoo uu kaga soo qayb qaatay farxadda dhar ciid loogu geynayay masaakiin. Balse markuu saan u soo baxay isagoo taleex marayo una socdo qoyskiisa si uu uga soo afuro, ayay dhexda ku heleen rag xabadaysan, halkaasi oo qaybta kore ee jirkiisa ay xabado kala heleen rag beesha ku sugayay. Allaha u raxmaday waxa uu ahaa mid nasiib leh oo khaatumo wanaagsan ku geeriyooday. Waxa uu ahaa mid caawiya masaakiinta magaalada Muqdisho ku sugan, caan baxay magaca Atooraha Badda. Allaha u raxmaday wiilkan yar oo daacad u ahaa dalka iyo dadka, masaakiintana caawini jiray, ayay gacan ka xaq daran ugu dambeyn xalay ku dishay degmada Taleex ee magaalada Muqdisho. Daaw sidoo uga farxin jiray hooyooyinka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku dhiban. daawasho waan saaka salaad u soo dheelmana way nus dollar aan ka helay nus dollar baawur ima saarto guri ima geeyso guri ma ka inaqato waxaan haysana ma jirto idankaan nigu noolnahay gacanta nagu haaya bishi shan qaada afurkaayna la meel noo saar afur alaayna waxaan codsanaynaa bishi soona laga soo socoto bishi uu khayr badneed way afurkaayna meel noo saaran waa u duceynaynaa ilaahay dartiisa aan ugu duceynaynaa. daawadahadan damiirka leh ee muuqaalkan uu soo gaarayo waxaan kula wadaagayaa muuqaal ay sheegeen saraakiisha inuu ahaa kii ugu dambeeyay ee uu galabsaday inuu duubo. inuu xaqiijiyeen saraakiil sarsare oo uu la shaqeynayay Atooraha Badda. Allaha u naxariistee. haddaba muuqaalkiisa daawasho ilaahay ku dharshay hadhaafinaha muuqaalkan oo sheer gareeya oo walaalaha Soomaaliyeed oo muxsiniinta gaarsiiya qaar Allah idin siiyo gaarsiiya walaalayaal hooyooyinkan masaakiinta aa u jeedin hay'ad wax ma siiso waxay ku nool yihiin walaalaha Soomaaliyeed oo muxsiniinta waxay u soo dhiibaan ku nool yihiin sida u jeedin hadeertaan soonana soo gaaray soonkana waxa u baahanaa walaalayaal inaan afurino sidii soonka hore u afurinay ayaan rabnaa inaan afurino arinkana waxa idin ka codsanaynaa sidii soonka hore saa gurmad ugu soo sameeyeen ina ilaahay dartiis soonkan gurmad fiican ugu soo sameeyeen sadaqa sideedaba yaraan ma gasho qof kasta wuxuu awoodo waxaan ka codsanaynaa walaalayaal inuu soo diro